lahayn waxadulkeena u gaaraye laynagu garta calanka dangeesu ku gaadhan tahay waxadulkeena u gaaraye laynagu garta reer guurayiya gabadh simaad tidcaani waxadulkeena u gaaraye laynagu loogu deeqay biyihii hadda waxaa loogu shubayaa baco hadalkayga waxaan ku darsanayaa dadka oo dhan fariintan ma faraya ee cid gaara ayaan farayaa dadka awrboogays iyo ka soo jeeda xudun dadku awrtoodii iyo wixii hidiya dhaqanka ahaa bay isticmaalayaan haddar awrkan raashin iyo biyaa lagu doonayey nin baa watay innaga awr reeryo la saara beri hore inoogu dambaysay inagu dhaqankeennii waynu ka tagnay ummadda waynu ka hadhnay inaynu ummadda ka horraynana waynu isu naqaannaa ummadda waynu ka hadhnay wixii awoowayaasheen ku soo dhaqmi jireenee soo jireenka ahaa dad baa weli isticmaala oo ku shaqaysta laakiin innagu kuma shaqaysanno tiknolojina maynaan samaysan ummaddana waynu dhaafnay oo kor baynu u baxnay dhulkana waynu ka tagnay cirkana maynaan gaadhin haddaba dadka waxaan gaadhsiinayaa baaq dheer aan u gaadhsiinayaa in lagu noqdo dhaqankii awoowayaasheenna soo jireenka ahaa ee aynu intaa ku soo leekaannay ee aynu waddanka lagu arki jiray haddeer haamaa saaran waa la dhaaminayaa kaasuna wuxuu qaadayaa rarkii kale ee raashinka dad baa wata kuwa kale halkaa horay ku xidhxidhan yihiin dina biidankeeda leeyahayey dadku waa dad wixii asal ay u lahaayeenee looga tegey ku intifaacsanaya laakiin innagu kuma intifaacsanayno ummad hadhay baynu nahay waxaan baaq laynagu garta maantay galladinoo soo gashay gobanimadayada ku loo wadgey maantay galladinoo soo gashay gobanimadayada ku loo wadgey ummad waxeedii ka tagtay baynu nahay ummad gaabaysa baynu nahay waxaan baaq dheer u dirayaa dadka ka soo jeeda awrboogays iyo meesha la yidhaahdo degmada xudun waxaan u dirayaa dhaqankii awoowayaasheen dib ha loogu noqdo anugu hadalkayga intaasaan ku soo gaabinaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu